hadduusan ilaahay ku qadarin, ilaahay idmin, ilaahay ogolaan. saaxiriinta mashriq iyo maqrib joogta, shayaadiinta meel kasta afarta baynajaha joogta, hadday isku yimaadaan oo sixir iyo bala kuu degaan waxba kuma gaarsiin karaan hadduusan ilaahay ogolaanba. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا لها شرفت له كحرا سي اف بلشو كسو دوادا عشر كان عجائب كي سوتا مدان كلا مغنين كلا داهني نوغا آدوغا حن بل سوى حادوغاتان عشر دي حالك كان نكوغو تلقلني يينان سمتبحنا نلوشينا واسكوا joogta noqon doona, kuwa soconaya, kuwa aan laga caajisi doonin, kuwa aan laga daali doonin insha Allah ta'ala. halkan waxa idinkugu hayaa ducaa mucjiso ah. ducaadan mucjisada ah waxaan uga takhalusaynaa xanuunka adiga hadda ku haya, noocu yahay anaan ku weydiin, kan hadda adiga ku haya baan uga takhalusaynaa. si aan uga takhalusno oo xanuunkaasi uga mayrano, si fiican u dhageysho muuqaalkan bilow ilaa dhammaad. inta uusan weli gaarin gaarsii subscribe-na dheh CF Bulsho. waa noloshaada, waa badbaadadaada biidnillah. waxaanu halkan u aasaasnay waxa weeye nafteena inaynu caawino. CF Bulsho arrimaha ruuxiga iyo riyooyinka ku soo bandhignaa channelka CF Bulsho ee YouTube-ka. subscribe dheh, like dheh, noqo ardayda ugu horeysa ee casharadan ka faa'iideysta. xanuunada la daala dhacaysid ee dhakhtar walba la taagan tahay, lacagtii kaa dhameeyey, daawooyinkii kaa dhameeyey, gurigaada ka dhigay sida farmashiyo daawooyin dhaca ay yaalaan, baad uga caafimaadaysaa ducadan mucjisada ah. ducadan mucjisada waxaa lagala soo dhex baxay aayad ka mid ah qur-aanka kariimka, waxaana tilmaamay caalimkii la oran jiray maxamed ash-Shacraawi, ilaahay u naxariiste. sheekh Shacraawi oo reer Masar ahaa, intii taqaana ayaa garanaysa, oo mufasir weyn ahaa, qur-aankana la saaxiibay, ayaa ducadaani aayad ka mid ah qur-aanka ka soo saaray. maxay leedahay ducadan? اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. meesha laga soo dhanbashay ducadan waad fahantay dhamaadkeeda markaad maqashay. wattabacuu maa tatlu shayaatiin calaa mulki Sulaymaan, aayadaas qaybta ka mid ah oo ah wamaa hum bidaariina bihi min axadin ilaa biidnillah. yacni sixirka ay samaynayaan shayaadiinul insi waljinni, xasadka, isha, balaayadan, shayaadiintan, waxa ay samaynayaan ee dhagarta ah kuguma asiibi karaan, kumana soo gaarsiin karaan ilaa ilaahay idan uu fasaxay inuu u fasaxa mooyaan, ilaahay qadarkiisa inuu ku dhaca mooyaan. hadduusan ilaahay ku qadarin, ilaahay idmin, ilaahay ogolaan. saaxiriinta mashriq iyo maqrib joogta, shayaadiinta meel kasta afarta baynajaha joogta, hadday isku yimaadaan oo sixir iyo bala kuu degaan waxba kuma gaarsiin karaan hadduusan ilaahay ogolaanba. marka mar walba idanka waa xagga ilaahay, balse adigu dadaal. waxa sixirka iyo balaayooyinkan iyo xanuunada ruuxiga waa wax jiro qur-aanku sheegay, laakiin haddana aamin qadarta ilaahay wax ka hoos baxsan inaysan jirin. taas oo qofka mu'minka uu ku xaqiijinayo arkaanta iimaanka mid ka mid ah, an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrihi. qadarka ilaahay inaad rumaysid weeye, kaad khayr u aragtid iyo kaad shar u aragtidba. laba gooraba ilaahay xaggiisa khayr unbaa ka yimaadeen, laakiin adiga aragtidaada khayr iyo shar ayay noqonaysaa. oo xanuunka waxaa laga yaabaa adiga inaad shar u aragtid, marka qaarkoodna ilaahay subxaanahu watacaala kuugu samaynayo khayr kuu yahayba adiga, laakiin adigu shar u aragtid. macnaheeduna waxa weeye ilaahay waxaad awood u siisay bili-aadankaada ama khalqigaada qaar ka mid ah, awood waxaad u siisay sixir iyo shar inay sameeyaan.
hase yeeshee waxaad xafidatay oo cidna kula wadaagin waxa ay samaynayaan dhibkiisu inuusan shaqayn ilaa adigu inaad idantid mooyaane. marka waxaan magan gelayaa rabbiyow waxaad gooni u leedahay, waxaana ka magan gelayaa waxaad ayaga awood u siisay oo sharka iyo balaayada ayaan ka shaqeeyaan. waxaan cuskanayaa wamaa hum bidaarina bihi min axadin ilaa biidnillah, yacni qowlkaada tawasul aan ku tawasulayo xaqiisa, qowlkaadan xaqa u leeyahay bixaqi qowlika wamaa hum bidaarina bihi min axadin ilaa biidnillah. yacni wamaa ma ahaanin buu ilaahay leeyahay hum, wamaa hum ma ahaanin kuwan sharta iyo xasadka abaabulaya ma ahaanin buu ilaahay yidhi bidaariina kuwa ku dhibi kara oo waxyeello ku gaarsiin kara bihi sixirkan iyo shartan min axadin qof bila aadana dhib kuma gaarsiin karaan sixirkan ilaa biidnillaahi ilaahay inuu fasaxa mooyaane, ilaahay qadarkiisa inuu keensada mooyaane. marka ilaahay idankiisaas iyo qadarkiisaasaad magan gelaysaa, waxaana ka magan gelaysaa ayaga wuxuu u qadaray oo yacni waxa inaysa sameeyaan maloo kiciyaan. halka waxaad ogaatay marka ducada iyo wardiga awoodday leeyihiin. meesha keliya loo cararayo, meesha keliya na badbaadinaysa, meesha keliya na samata bixinaysa halkaa inay tahay ayaa ogaateen. waxba yaana meelo kale ku lugoyn, waxba meelo kale ayaa nafteena been ugu sheegin, halkaa aynuu cararno. ilaahay baa subxaanahu wa tacaala amarkiisa yaallaa, kalaamkiisa iyo hadalkiisa iyo xukunkiisa iyo xikmaddiisa ayaa magan gelaynaa shartan dhacaysa. ilaa sharta waa badata hadda, balaayo dhan baa meel kasta taagan, waxa laysu ogol yahay ma jirto. intaas oo guryaha sixir ku burburay, intaas oo guryahana sixir dartiis bay la rafaadsan yihiin oo baraka xumo ugu dhacday, oo khilaaf iyo xanuun iyo mashkilado iyo meel waxa ay ka socdaanba aan la fahmayn ay ku nool yihiin, rafaad ay ku nool yihiin. ilaahay qadartiisa waaye. laakiin haddii xagga looga caafimaadaya, waxa looga caafimaadaya waxa weeye halkan aayaadkan ilaah in sharti lasii weynaysiiyo, fursad iyo chance lasii siiya ma ahan, in meel kaleo daawadii aysan jirin laga raadiya maahan. daawada waa halkan. allaahumma innaka qad aqdarta bacda khalqika cala asixri waashar walakinaka احتفظت لذاتك بإذن الضر فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. انت سنسكو أغنهي ولا الله كان شير قريب لو ذاك. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.